سوق مقالة مدينة النبي عليه الصلاة والسلام إساقا أمريا أيو أركا إنان دل يرى ورين مدينة فرق الذهب وقعنت كسدا لأن مرقاب النبي كسيبي رولك أيو كتوري النبي وحوري أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده متكين ما أكسيا دنبيل نار إنتو قاتو إنو قعنتي سأوق شدو مركو كتوري ومعنوه ومحي أمد إذا الرجع جنبه النبي يقول ذهب كأنه حدان والله حرمي هوين كودنا والله حلال يب رسولكم وصلي النبي جنا صلى الله عليه وسلم تدا سوق السيب يركي فرق الذهب كان إنك ما أنت إنسان منكر أركينا مزولنا عرب كما كزولنا مي قعنت ما كزولنا مي قلبك ما كإنكرنا مي بل وحيس كان نقطة نلوشين ما أنت واسكع عادوين واسكع عادي وحني صلاة دولة قتك أو اسكع عادي dadku agtaada macsiyo ku sheekaysta waa iska caadi dhalinyaradii hor sidee doonaan dharka u xidho timahana sidee doonaan u xirta waa iska caadi waa caadi buu kulay waa mujtamacu dhan baa sidaa noqday maxaa la qaban karaa uu zuulinay nabigu sallallahu alayhi wasallam munkarka markuu arko gacantiisu nabigu ula tagayay gacantiisu kaga saaray fargalkii dana dhulku ku tuuray markaasuu nabigu yiri midkiin مكر يا دنبيل نار انتو قادنو غعنتا غشدو عدلكا markuu uu nabigu iskaga dhaqaaqay ay saxaabadu ku yiraahdeen yarkii yara markuu nabigu tagay kadib dahabkaaga qaado oo intafic si kala uga faa'iideyso uga intifaac iibi cidaa doonto si markaasuu saxaabigii wuxuu yiri la wallahi la aakhuduhu waqad tarahahu rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam wallahi inaan qaadan budo qaadani maayo maadaama nabi maxamed gacantiisa uu igaga siibay oo dhulka ku dhiftay oo dhulka ku tuuray wallahi inaan qaadanayn buu yiri hada inuu qaato uu iibiyo oo lacagtiisana uu maaragtana meel kale uu isticmaalo ka xaraan maahina waa mubaax waa u banaan tahay inuu gashado un baa laga xarimay laakiin qadarinta nabi maxamed ay qadarinayaan buu yiri wallahi inaan qaadanayn buu yiri waayo nabi maxamed baa iga tuuray maadaama nabi maxamed gacantiisa dhulka uu ku tuuray wallahi nadib u qaadan maayo buu yiri قدرك النبي إنك أنا الله نفهم سيء وصلي النبي صلى الله عليه وسلم عجيب تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع في كل يوم يبتديك بنعمة وأنت ذاك منه مطيع إلهي يا نبي جعل ذو ما أنت مسلمين توشيغنا يا وعرب كان كأشهادنا لكن أفعاشنا هذه لا إيجو وأفعاشنا وخلاف سنتهي كتابك إلهنا وخلاف سنتهي سنة النبي جنا وخلاف سنتهي مركا جعل هذا عن شيءنا وجعل بيننا هذا النبي محمد جعل شهي وهذا دعي له نبى نكو جعل يحيب أدعاء قصتكم سابسن نكي جعل كي سأل لوجا شيء جري قيس الليلة نحمرتي نكي مركا قيس أيا جعل كي الليلة أيو واش درادد markaasuu darbiyada iska seexan jiray maalin maalmaha kamida waxa la arkay isagoo jidaar dhudhunkanaya gidaar darbi buu dhudhunkanaya markaas lagu yiri warqaysow maanta waalidaadi ma waxay ku geysay darbiga inaad dhunkatid markaasuu uqabbilu dal jidaari wa dal jidaar wama wuxuu yiri jidaarkan aan dhunkanayo isaga maaha waxaan u jeedo dhunkanaye gidaarkan gadaashiisa leeyla ayaa degan oo jacaylka leeylan u dhunkanaya buu yiri maalin kala la arkay isagoo ay haysto dhunkanaya war aygana maanta maxaa kugu saliday wuxuu aqalkii leeyla ay ku jirto ka soo baxay uu ka soo baxay maxabadu eeg haddaan ilaahay jecel lahay oo nabigiisa aan jecel lahay sallallahu alayhi wasallam mujtamaceena iyo dadkeena iyo dalkeena haddii salaada la adimo magaalada intoo laga baabuurada la joojiyo oo basaska la joojiyo oo maqaayadaha la xidho oo dukaanada la xidho أي مساجد عمر ملحيد مساجدنا إنما قادينه بل وليس سوق لها يولورن لها أنا كنا هنتكلم جمع مسجد يبون نجبوا حيه كسر درر بالورن الصلاة جمع عدم هكو حرنا لو كان حبك صادقا لأطعته هذا جعلك ودبك يا هي وضع لهيد إن المحب لمن يحب مطيع نبنيك وجعل هيب وضعاي dhalinyarada kubadda jecel kuwa kubadda ciyaaray isku ekeysiyaan kuwa heesaha jecel kuwa fanaaniinta la yiraahdo isku ekeysiyaan
kuwa siyaasadda jecel siyaasiyiinta isku ekaysiiyaan kuwii nebi maxamed jecel nebi maxamed bay isku ekaysiinayaan magaalada madiina ayuu nebigu soo galay calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay madiina yahuuddii la deganayd ansaar oo maalinta cashuuro la yidhaah soomaysa waa 10 muxaram weeyaan markaa buu nebigu ku yidhi waa maxay yahuuddu maalinkan ay soomayso markaasaa la waa maalintii ilaahay nebi muuse uu ka badbaadiyey waa maalintii nebi muuse iyo reer bani israa'iil ilaahay jalla wacala uu badda u dilaaciyey ee dariiqa ilaahay uga jeexay badda ee laga badbaadiyey halaaga ee cadowgoogii fircoonna la halaagay weeyaan nebi muuse soomay calayhi salaam annaguna waxaan u soomaynaa shukri iyo mahadnaq baan u soomaynaa oo waa diintayadii iyo nebigeygii baan ku dayanaynaa markaasuu nebigu saxaabadiisii ku yidhi annakaa uga xaqle muuse sooma cashuuraa kal dambe haddaan gaadhana sagaalaadkan ku dari buu rasuulku yidhi yahuudda muxuu nebigu ku khilaafay caadaadkii kuma khilaafin bal wuxuu ku khilaafay cibaadaadkii buu ku khilaafay mujtamaca muslimiintana maanta caalamka meeshay doonaanba ha joogaane dhallinyaradeenna mujtamaceennu inta badan waxayna saameeyey waa reer galbeedka tobanka cashuura waxay u soomayaan baa la yidhi waa maalintii nebi muuse ilaahay badbaadiyey ee dariiqa looga furay badda fircoon wajeyshihuuna laga halaagay markaa waa shukri bay u soomayaan markaa buu nebigu yidhi annakaa nebi muuse uga xaq leh waa soomaynaa cashuuree sooma kal dambe haddaan gaadhana buu rasuulku yidhi sagaalaadkana waan ku darisaan yahuudda u khilaafay cibaadadii buu nebigu yahuudda ku khilaafay innagana maanta dhaqankii baan ka qaadanay tarbiyaddii baan ka qaadanay tacliintii baan ka qaadanay zawaajkii baan yahuudda kaga dayanaynaa tacliintii baan kaga dayanaynaa dhar xidhashadii baan kaga dayanaynaa marka saxaabigii dahabkii nebigu uu ka tuuray inuu qaato uu iska diiday limaada waxuu garanayaa nebi maxamed qadarkiisa sal allahu alayh wasalam waa jiilkaasi qarna alawal waa waxaan lagu gaadhi karayn bay kamid tahay arrimahaasi inay gartaan nebi maxamed qadarkiisa calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha kamid uu nebigu ku yidhi nin ansaariya buu ka yidhi inantaada ii guuri aniga markaasuu yidhi ninkii ansaarigii nicama wa quratu caynin buu yidhi oo nebi allow adiga ayaa ku heli kara buu yidhi adiga ayaa ku heli kara markaa buu nebigu yidhi anigu ma rabiye waxaan u rabaa julaybiib baan u rabaa julaybiib wuxuu ahaa nin magaalada madiine oo dhan guri walba lagaga sheekaysto la yaqaano dabeecaddiisa oo dabeecad waxaa lagu yaqaana xoogaha akhlaaq xumo ah dadka ayuu la kaftami jiray xataa haweenkuu la kaftami jiray markaasa dadka reer madiine o dhan waxay isku sheegeen gabdhihiinna julaybiib ha iskaga dhisina waa nin dabeecaddiisu aan fiicnayn oo dumarka meelaha iska marmarayo hadduu doono la kaftamaa marka waa nin akhlaaq xun weeyaan akhlaaqdiisaasi aan wanaagsanayne waa lagu sheekaysanayaa madiina o dhan baa ku sheekaysanaysa waa ninkaa ninkuu nebigu leeyahay ninkii reer madiina inantaadii aniga isii markaasuu saxaabigii yidhi nebi allow adiga ma inantayda ayaaba kuu heli kara haddaad adigu tidhi isii waaba nicmad ilaahay aniga isiiyo indhahayguna way ku raaxaysanayaan inantaydiyo xaas adiga ku noqotee hel buu ka yidhi markaasuu nebigu yidhi anigu ma rabiye laakiin waxaan la rabaa buu yidhi julaybiib baan la doonayaa julaybiib markaasuu yidhi xataa ushaawira ummaha hooyadeed baan ka talagelinaye ii kaadi buu ka yidhi hooyadeed baan la soo tashanaya waxaa la yidhi reer madiina curfi dhaqan waxay lahaayeen gabdhuhu haddii ay gaadhaan da'dii gabdhaha lagu guursanayey ninka gabadhaa dhalay inantaa dhalay intuu nebiga u yimaado ayuu odhan jiray inantaydii way qaan gaadhee nebi allow haddaad inantayda adigu aad doonaysidna waa kuu diyaar haddaad cid kale u doonaysana waa kuu diyaar dadka qofka aad khayr ku tuhmayso inaad inantaada la doondoonataa waa min asunna weeyaan xabse binta cumar markuu ninkeedii ka dhintay cumar binu khataab intuu socday ayuu cumaan u sheeguu ku yidhi haddaad doonta inantayda xabse waan kuu dhisi markaasuu cusmaan yidhi waan soo fikiri
isku noqday markaasuu yidhi yaa cumar waan fikirayo waxa ii soo baxday sanadkaa maanta inaanan guursane hay sugine walaal iga raalli ahow jazaaka allaha khayr buu ka yidhi haddana maalin kale cumar socdo abubakar buu la doontay xafsa wuxuu yidhi yaa abaabakar sidiiq haddaad doonta inanteeda xafsa waan kuu dhisi waa kuu diyaar markaasuu abubakar uu ka aamusay limaada muxuu cumar inantiisa xafsa uu cuthmaan iyo cumar iyo abubakar ugu bandhigayaa ma taqaanaa curfiga beriga muslimiintu ay lahaayeen waxaa ka mid ahaa inantu hadday gaadhagdaadii gabdhaha lagu guursanayey waxaa u soo haasaawaya aabbaheed walaalkeed adeerkeed iyo abtigeed halka inaku aan leenahay soo eegeego waxaan idhahnaa ya aabba mid shaqeeyo uun dee ya weliba hay-adaha u shaqeeya hay-adaha ogaa hay-adaha kharash badan beryahan moogtaha laa ilaaha ila allah soo eegeega maaha adaal inantaadu inay dibadda u soo baxda maaha waqarna fii buyuutikunna inantaadu waa inay xagga dambe fadhidaa jilbaabka ugu horeeya gabadha muslimaddu ay xidhanayso waa inay guri joog noqoto weeyaan baahideeda wixii dibadda ka yaallana markay u baahan tahay ama aabbaheed ama walaalkeed ama inankeeda ama adeerkeedu aabba la dhashay ama abtigeed hooye la dhashay ama walaalkeed baa soo kaxaynaya oo soo raacaya limaada maxay u soo raacayaan maahin tasallut iyo saytarayn gabdhaha la saytaraynayo oo ikhtiyaarka laga qaadaya hamoodin inan yahay muslimadii bal adigu ku ilaalinaya waa gaardagoorkaagii waa kii ku ilaalinayey adigu kaa ilaalinaya cadowgu kaa ilaalinaya tuugtuu kaa ilaalinaya dadka mujrimiintu kaa ilaalinaya fasaqadu kaa ilaalinaya sida lacagta iyo dhaymanka meel qaaliya loo dhigo meel aan la arkayn loogu rido ayaa gabadha muslimadda ee mu'minadda ay diinta islaamku meel fiican u dhigtay aday ku ilaalinayaan innagana maanta waxaa laga dhaadhiciyey diinta islaamku dumarka ikhtiyaarkii bay ka qaado aqalada fadhiya bay tidhi aqalka fadhi sharaftaada aqalka inaad fadhida kuugu filan sharaf bay kuu tahay guriga inaad fadhido soo dhuun doono maaha abibakr cumar isagaa u doono u haasaawo inantiisii inanta aad dhashay dadka aad khayr ku tuhmayso inaad u bandhigtaana ceeb maaha maanta innaga xaggeenna waxaa loo arkaa hadduu ninku inantiisa uu ragga u yar u soo haasaawo waxaa lays odhan buu isleeyahay war matu cagaluu hayaa u nagu camaynaya cumar baa socdo cumaan u bandhigay cumaan uu jawaabay abubakar buu u bandhigay abubakar waa ka aamusay muddo yar kadib waxaa soo doonay xafsa radia allaahu canha nebi maxamed baa soo doonay calayh salaatu wasalaam daadna markaabuu nebigu guursaday markii guurkaasi uu dhammaaday ayaa maalin dambe cumar iyo abubakar baa kulmay abubakar baa hadalka qaatoo yidhi yaa cumar malaha qalbiga waxbaad iigu haysaa markaasuu yihi haa waan kuugu hayaa hortaabaan cumaan u bandhigay wuu ii jawaabay jawaab waafiyuu i siiyey adigana waa kuu bandhigay waa adiga aamustay haayana imaad odhan mayana imaad odhan markaasuu abubakar ku yidhi anigu waxaan ogaa nebi maxamed oo xafse hadal hayaan ogaa markaas sirta nebiga inaan sheegaan diidanaa hadduu nebigu xafse uu dhaafi lahaa uu iska dayni lahaana wallahi anaa kaa guursan lahaa buu ka yidhi saasaa markaa nebigu ku ogaaday reerkan reer madiina reerkan ansaareed gabadhoodu inay qaan gaadhay waxau nebigu ku ogaaday baa la yidhi nin kastoo ansaariya hadday inantiisu qaan gaadho intuu nebiga u yimaaduu odhan jiray yaa rasuulallah gabadhaydii way gaadhay da'dii gabdhaha lagu bixinaye haddaad adigu doontana waa kuu diyaar haddaad cid kale u rabtana waa diyaar saasuu nebigu markaa u weydiistuu ku yidhi inantiina ii dhisa markaasuu ri nicima wa quratu caynin yaa rasuul allah waa nicmad ishayduna way ku raaxaysaniye waad heshaa markaabuu nebigu ku yidhi anigu maaha waxaan rabee waxaan u rabaa julaybiib julaybiibna waa ninkan nii soo sheego waa la yaqaana dabiicaddiisa markaasuu julaybiib ha uu istaagay ninkii inanta hooyadeed baan la soo tashanaya dee baliikaadii markaabuu nebigu yidhi haya la soo tasho markaasuu ninkii saxaabigii islaantiisiibuu u yimiday wuxuu yidhi inanteennii waa la soo doonay ayaa soo doonay bay ku tidhi markaasuu yidhi rasuulki ilaahay baa soo doonay markaa bay tihi nicama waquratu caynin waquratu cayn wallaahi waa nicmad waana ku raaxaysanaynaa oo indhahayna ku farxaye waan siinay nebi maxamed markaasuu yidhi nebigu naftiisa uma rabo markaa bay tihi hadda ayuu u rabaa
markaasuu Julaybiib Julaybiiba saasay tiri Julaybiib markaasay tiri may Julaybiib ma siinin inantayada hebel baa soo doonay waan u diidnay hebel kala soo doonay waan u diidnay Julaybiib waa ninka taqaanid adiguna ee magaalada Madiina oo dhan lagu hadal hayay lagu ballamay inaan inanba loo dhisin war Julaybiib u dhisamayna qof kale nabigu ha keeno hadalka markay ku tiro ninkii soo jeestay ayay inantii oo xagga dambe ku jirta ayaa tiri hooyo aniga dhageysta ma nabi maxamed baad amarkiisa celinaysaan bay ku tiri wala fiirso ma nabi maxamed alayhi salatu wassalam oo aniga ibixiyay oo Julaybiib yiri siiya miyaad amarka nabi maxamed celinaysaan oo diidaysaan wallahi bay tiri halka uu nabi maxamed raaliga uu igala noqday aniguna raali baan ka ahay ibixiya bay ku tiri wala fiirso markaas ay ku tiri islaantii waa run hadalkaasi orado nabiga u sheego ku dheh halkaad raaliga adigu baad kala noqotay inantayadii anaguna raali baan kala noqonay markaas saxaabigii baa nabiga u yimid oo nabi allow inantii Julaybiib waan siinay guurkii uu Julaybiib u diyaar garoobayo ayaa waxa dhacday fazca waxa la maqlay cadow inuu soo socdo ciidankii baxayay buu markaa Julaybiib u raacay markii la dagaalamay ee gaaladii la jabiyay la laayay ay baxsadeen ee meydkii dhaawacii la kala guranayo ayuu nabigu saxaabadii ku yiri war anigu nin baan tabaya war nin baan arki laahay markaas la yiri nabi allah waa ninkee markaas Julaybiib awaya markaas meydkiisa la doondoon waxa la arkay isagoo 7 mushrikiin intuu dhulka dhigay isagana markii dambe lagu daro meeyda oo dul yaala markaa buu nabigu yiri wallahi kaas Julaybiib anu iga mid yahay aniguna isagaan ka mid ahay 3 jeer ayuu nabigu hadalka ku celiyay ila anigu Julaybiib anu iga mid yahay ana isagaan ka mid ahay waa maxay sidii aan raaliga ka ahaabo u dhintay weeyaan waa iga mid maalinka qiyaamahana jannada waa rafiiqiga weeyaan markaasuu nabigu gabadhii buu xasuustay gabadhii ajiibka ahayd markaasuu ilaahu gabadhaas ilaahu arsaaqada sida roobka ilaahu kaga dhig khayrka ilaahu sida roobka kaga dhig maciishadan ilaahu ciriiri waligeed ha ka gelin buu rasuulku yiri gabadh armala oo ka baraka badan oo ka xoolo badan bay yiraahdeen asxaabadu nama soo marin gabadha mooyaan laana ducada nabigeena ku dhacday sallallahu alayhi wasallam marka nabiga alayhi salatu wassalam qadarkiisa garanayaan qiimihiisa garanayaan nabiga alayhi salatu wassalam ayaa